mudane gudoomiye markii amni laga hadlaayo waxaa fiican in qofka asaga maskaxdiisa uu research ka sameeyo oo ka baaro xigmad muxuu ahay tan ugu muhiimsan gobollo kale aniga hadda uu ka cimaayo magaaladan xamar ee dhibaatada tan aadka u weyn oo ciday ka qarsoon tahay ayna jirin maxaa waaye waxay diidan tahay oo shacabkeeda ay ka mudaharaadayaan maxaa amnigan muxuu ahay oo u sixmileeyahay labadaas qodob ayaan rabaa inaan kor istaago gudoomiye bajaajyaal ilmihii waalidiintooda tahriibka ay ugu celiyeen ayaa maalin walba dhimanaya waalidkaas iyo bajaajyaalkaas iyo caruurtaas ku dhimanaya bajaajka waxa dilaayo shabaab ma waa ciidankeeni qofka waxaa looga bartay markii oo halkan uu yimaado inuu ka hadlo dhibaatada ay shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxaa dadkan laaynayo oo bajaajyaalkaas dili waa ciidankeeni ciidankii amniga ee laga rabay inay ayaga loo soo cararo inay wiil Soomaaliyeed maanta ugu dambeysay asaga iyo rakaabkii oo wadayba la dilo nasiib darro weyn waaye waxay ku dhacdeen waxa la rabaa inay xildhibaanada sharafta leh maskax shiil ay sameeyaan oo ay soo dhiriyaan fikirka looga hortagi lahaa iyo tilaabada laga qaadi lahaa mudane gudoomiye shacabkii Soomaaliyeed waxay arkaan inay ciidamadoodii kala shakisan yihiin shalito waxa isdilay ma ahayn shabaab iyo ciidankeen waxa isdilay waxay ahaayeen ciidankeeni militariga iyo booliiska ummadii hadii ay kala shakiyaan ciidamadoodii dhaxdiisi ee ay isdilayaan maalin walba la leeyahay xaafad dhan ama jid muhiim ah oo lagu ganacsanay ciidankii isdilay liiraado oo dadkii shacabka ahay korkooda ay ku dagaalamaan dawladnimada aan sheeganayno waxaan filayaa in ay haboon tahay inaan dib si ugu noqono maskaxdeena aan muxuu ahay ka hindisno wixii laga qaban lahaa gudoomiye shacabka waxay ka cabanayaan magaalada Muqdisho dhagxaanta wada walba lagu xiray annaga ruuxayna markii waxaan deganahay Cabdicasiis aan deganahay markaan dildilka dahsoon aan soo gaaro baabuurtii ay soo dhoobato wax baa lagu baaraa leeyahay meeshaas cabsida ugu koowaad ay iga soo gashaa talo baabuur baa safkan ku jiro ku qarxi doono mase ayaan leenahay haddana dhimashadii iyo qaraxi intii waa ka sii siyaadeen qolada kale ma waata ay u bixiyaan masasal oo maalinta la fiirsanayo gudoomiye haweenkii Soomaaliyeed loo marxamay jidadka ay ku dhalaan wadooyinkii xidhan amnigiina waa sidiisii oo si foolxuye kicitaanka shacabka la kicinayo oo anigu hadda meel laga kicinayo ma aqaanay la kicinayo oo ay shacabka cirkaas marayeen oo nacaybka dawladda ay ku sii badanayso waa mid meesha taala loo baahan yahay inaan ka fikirno sidii ilaa dawladda la sheegayo waa anaga gudoomiye waxyaabaha ugu yaabka badan waxa weeye hadii qarax dhaco ambalaas soo gurman karta malaha la yiri ilaa iyo haddana wax beenay ma arkin anigu qofkii markuu qarax ku dhaco hadii ayna ambalaas u imaan ambalaasyadu ma hoteelada ay aroosada may geynayaan ay galbinayaan wax lala yaabo waaye arintaas waxay ahayd hadii ayna jirin xataa dawladda inay iska beeniso oo si furcada ay u beeniso haday aamusto shibtu waxay ka mid tahay ogolaansho ma ogolin shacabkan in laga xiro wadooyinkii in laga xiro in la kaciyo in qaraxii ku dhaawacmay la qaadi waayo hadda waxaan filayaa inta qodob oo aan sheegay oo halkan shacabka Soomaaliyeed message-kooda iyo aragtidooda aan ka soo dheehanayno dhammaan waa guul darro u soo hayatay dawladdan wadana gudoomiye golaha wasiirada walaashay xildhibaanadii iga horeysay wasiirada ahayd waxay sheegtay in lala xisaabtamo ay muhiim tahay
horta yaan la xisaabtanaa golihii wasiirada ee aan ansixinay halka aan keenay maxaa ka dambeeya wax ka dambeeya oo male nimaad adigaba aad kalsooni siinin ee inta la dhaariyay shaqadiisa hore u dhaxgalay wada xisaabtanka kala dhaxayn kara waad garanaysaa intay la eg tahay marka waxaan leeyahay golo wasiiro oo la xisaabtamo aniga hadda meeshan kuma ogi mudane gudoomiye saddex markii loo qaybiyo hal meel ayaa ka nool golihii wasiirada ee aan halkaan meel fagaara aan ku ansixinay inta kale waxa waaye qaar guddiga joogtada ah dhaariyay kuwa ugu nasiibka badan waa kuwa maanta horta in lagu dheeriyay oo aan waliba kalsooni noola weydin waxaan rabnaa dalka kan magaalada tan emergency ay ku jirtaa gudoomiye Yariisow meel cad buu emergency inay ku jirto oo ku sheegay emergency dalkan waxa gelin karo baarlamaanka federaalka ah kadib markii madaxweynaha soo codsado baarlamaankana soo ogolaado mudane gudoomiye journal maanta aan aqrinay xildhibaanada kamid ah la qaybsaday waxa ku qoray Donald Trump oo yiri dalka Soomaaliya ilaa bisha Abriil emergency aan geliyay waa ku sii jireynaa Donald Trump waxa emergency na geliyay journalada laga fiiriyo website-ka oo www.whitehouse.com laga fiiriyo nasiib darro weyn waaye annaga qaran jira oo xushmad leh oo qadarin leh ayaan nahay Mareykan la joogo oo madaxweyne Mareykanka ah annaga emergency ma gelin karo yaa laga rabaa in isbeeniyo madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka aan asu igmaday shaqadan oo aan u dooranay oo ah madaxweynihii aan dooranay sidaynaba annaga laba qof aan dooranay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynuhu dalkan dhibaatada ka dhacayo Mareykan uu sheeganayo inuu asaga emergency geliyay shacabkiisa ay olayaan maxaa diiday intuu statementkiisa iyo dadka shacabka la hadlo ee waxa dhacayo oo beeniyo qaarna uu rumeeyo waxa diiday oo la aamusay maxay tahay ma shibta ummadda Soomaaliyeed lagu xukumayaa anigu waxa soo dhan qalad jira ayaan u arkaa mudane gudoomiye waxa xaqiiq ah qofka la doortay waxa laga rabaa in is hadlo in shacabku waxa jira u sheego in meesha loo socdo uu sheego madaxweynuhu waa inuu hadlaa adiga gudoomiyaha waa in hadashaa oo aad boonansiga aan ku dhaqmaynay iyo sharciyada aan ku dhaqmaynay aad noo sheegtid waxa tiri guddiga muxuu ahay arrimaha gaashaandhigga iyo amniga iyo markii laga hadlaayo saxaafadda banaankan u saaraynaay tiri gudoomiye waa inay xildhibaano soo codsadaan haddii adiga ay ka timidna aad noo sheegtaa sababta ay kaaga timid waxa weeye saxaafaddu waxay ka wax tahay shacabka Soomaaliyeed lagihiisa iyo indhihiisa shacabka Soomaaliyeed haddii madaxweynihii ka aamusay haddaan annaga saxaafadda nagala cayriyo aan la hadli karin shacabka Soomaaliyeed intay wax ka maqlaayaan mudane gudoomiye adoo mahadsan dalka Suudaan rooti qaali ayuu madaxweynihiisa awood badnaa oo ku waayay xilka kii labaad oo asaga bedelna 30 saacadood soo hayno xilka ku waayay shacabka haddaan lala hadlin kacdoon baa dhacay aad baad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaah